markii aad maqasho ereyga diplumaasiyad maxaa maskaxdaada ku soo dhaca? safaarad, hogaamiye siyaasadeed, balse adigu ma leedahay dabeecad diplumaasiyadeed markaad dadka kale la macaamilayso? diplumaasiyadda macnaheedu maxay tahay? luqadda Roomaanka waxaa lagu yeedhaa qofka laba wajiilaha, laakiin Laatiinka waxaa loo yaqaan dukumentiga ama warqadda rasmiga ah ee madax dowladeed ama mid xukuumadeed uu ergo ugu dhiibo waddan kale. laakiin taasi waa qeexda diplumaasiyad erey ahaan, balse waa maxay macnaha dhabta ah ee diplumaasiyad? qoraaga wax ka qora siyaasadda ee reer Ingiriis Harold Nicholson wuxuu ku qeexay diplumaasiyaddu inay tahay maareynta iyo maamulidda xiriirada caalamiga ah iyadoo loo marayo qaab wada hadal. asluubka ama habka ay adeegsadaan safiirada iyo ergooyinku si ay u maareeyaan una xalliyaan xidhiidhadan waxay si fudud ula micno tahay in diplumaasiyaddu ay tahay dabarka isku xidha wadamada siyaasad ahaan, waana aasaaska dhammaan xidhiidhada caalamiga. wadamaduna kuma wada xidhiidhi karaan siyaasad ahaan iyagoo aan soo mareyn qaab diplumaasiyadeed, waliba iyagoo aan adeegsanayn safiiro iyo ergooyin. haddii ay dhacdo in diplumaasiyadda labada dal ay xasilooni darro ku dhacdo, tani waxay ka dhigan tahay inay xiisado ka dhalan karaan, taas oo sababi karta in xidhiidhka la isu jaro, taas oo iyaduna sii keeni karta in la waayo wax matalaad ah oo heer safiirnimo ah, isla markaana la isu gooyo xidhiidhka ganacsi. waxaana ka dhasha in muwaadiniinta loo diido lagana hor istaago in midba kale u safro dhulkiisa. mararka qaarkoodna arrimuhu way sii weynaa karaan oo waxay gaadhi karaan heer dagaal. waxaanu dib kuugu celin doonaa sanadkii 1961 markii lasoo gabagabeeyey heshiiskii Vienna ee xidhiidhada diplumaasiyadeed. xidhiidhka waxaa lagu qeexay shuruudaha shaqada diplumaasiyadeed iyo xuquuqda iyo waajibaadka ergooyinka diplumaasiyadeed, taasoo ay ku heshiiyeen dhammaan wadamada adduunku marka laga reebo Koonfurta Suudaan, maxaa yeelay waa wadan dhowaan kusoo biiray dunida iyadoo waqtiga ahayd qayb ka mid ah Suudaan. mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskii Vienna ayaa ah in dalka martida loo yahay uusan geli karin wax safaarad ah oo ku taala dhulkeeda ogolaansho la'aanta safaaradda, mana daalaacan karto ama ma arki karto isgaadhsiinta iyo dukumentiyada safaaradaha iyo qunsuliyadaha. waxayna diplumaasiyiintu leeyihiin xasaanad dhammaystiran, taasoo macnaheedu yahay inaan la xidhi karin xitaa aan la baadhi karin guryahooda. qodobadanina waxay dib inoo xasuusinayaan sheekada aasaasihii shabakadda Wikileaks Julian Assange, kaasoo magangelyo ka helay safaaradda Ecuador ee Ingiriiska kadib markii uu noqday dambiilaha koowaad ee mas'uuliyiinta Ingiriiska. sababta heshiiskii Vienna awgeena mas'uuliyiinta Ingiriisku ma aysan awoodin muddo 7 sano ah inay galaan safaaradda oo ay xidhaan ninkan, ilaa sanadkii 2019 markii Ecuador ay go'aansatay inay ka laabato xuquuqdiisa magangelyo ayna ogolaatay mas'uuliyiinta Ingiriiska inay xidhaan, iyadoo ninkani uu ku faafiyey shabakadiisa Wikileaks siro badan kuwaasoo ka dhex abuuray khalkhal siyaasadeed dowlado fara badan. laakiin ka waran haddii diplumaasigu uu dambi galo? caadi ahaan waxaa jira 2 ikhtiyaar oo xaaladan khuseeya. mid waa in dalkiisu kala laabto xasaanadiisa diplumaasiyadeed si mas'uuliyiinta waddanka martida loo yahay ay u xidhaan, ama in looga yeedho dalkiisa hooyo dabeed uu sidaa ku eriyo waddanka martida loo yahay. ugu dambeyntii waxaynu ku soo gabagabeynaynaa fiidiyowga waxa ay tahay boorsada diplumaasiyadeed. waxaa loola jeedaa ereygan dhammaan baakadaha ama warqadaha badan ee isku xidhan ee laga soo diro waddan ayna u dirto xafiiskeeda diplumaasiyadeed ee waddan kale iyagoo boorso ku jira. boorsaduna waxay leedahay xasaanad buuxda, sidaa darteed dalka martida loo yahay ma baadhi karo sabab kasta oo jirta, wuxuuna kaliya baadhi karaa haddii boorsada looga shakiyo sababo nabadgelyo awgood. marka waa la eegi karaa waliba iyadoo waddankaasi uu u baahan yahay joogitaanka iyo ogolaanshaha ergooyinka diplumaasiyadeed, iyadoo haddii aysan ogolaan boorsada lagu celin doono waddankii laga soo diray. haddii aad wax ka faa'iideen muuqaalkan ha naga ilaawi inaad la dhiirigeliso, lana soco muuqaalada dambe ee aan soo gelin doono insha Allah.